له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى يبقى مع هذا مولا خلقي مجال الأعمال ملاك خير موديو محمد بارو حبيب ونعيسان فيد ونعيسان دماتي كسر وهذا مدشنا لبدا أيوة سويتشتان بندق بوك أما إبغفر بوك سلوك الآخر قيد كسرسان موضوع بوك حباسية عاوة وحمدشنا لو مرتيا وراح بوكا عبد العزيز مهدي عبد العزيز بن عبد صوت الأنبا سلوك waxaa ku lamaan cabdicasiis laba qof oo iyagu mawduuca guud ee uu ku saabsan yahay buug oo ah fatwada si guud u eegi doona buugga si gaar ah iyo waxyaabaha uu ka hadlayo madasheeda waqtigeeda waxay noqon doontaa saddexdaa qof ee inoo bilaabaya hadalka oo yeelan doona 10 daqiiqo oo ay xisaabsanaan doonto qoraxa buugga oo jecelahay inaad ila soo dhaweysaan qoraxa waxaa ku wehelin doona cabdilaahi naagir sayid rugtadii minaysa wala waxaa saddexaynaya axmed ciise cumar haddii ay baydmo marka laga yimaado ibafurka iyo fahamka guud ee mawduuca iyo falanqayntiisaba madashu xaggiina u soo wareegaysaa qofkii aragti qaba qofkii su'aal doonaya inuu weydiiyo qoraxa ciddii mawduuca si guud doonaysa inay uga faallooto intuba waa mid inoo furan qoraxan hadal ku soo dhaweyn doonaa isagaa inoo bilaabi doona haddii ay baydmo eeba ma hadle mawlaha khalqiga magan ilaaha baale malaa'igta khayrkun sidiyo maxamed baan nuur leh naxariisna wajilay korkiisa haato habeen wanaagsan fiid wanaagsan bariida san idilkiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida wanaagsan aad uga soo qayb gasheen waxaan rabaa in aan si kaliya laaba idinka mahad celiyo waqtiga ay isu soo hurnay dhamaanteen marka taa laga yimaado anigoo tashiilaya waqtiga waxaan mawduuca waxaan rabaa inaan dhowr su'aalood ka jawaabo dabadeedna hadalkaygu noqdo su'aal iyo warcelin kow horta mawduuca aynu ka hadlaynaa waa maxay mawduuca aynu ka hadlaynaa waxa weeyaan mawduuca fatwada iyo kaalinteeda mawduuc waa ka fatwada iyo kaalinta laga siiyay muslimiinta dhexdeeda ma aha fatwada iyo diimaha kale ma aha fatwada iyo dad kale waa fatwada iyo muslimiinta dhexdeeda guud ahaan iyo gaar ahaanba muslimiinta dhexdeeda fatwada iyo kaalinta oo ah kaalin lama taabtaana fatwadu inay meelaha qaar ku ilaalahay muslimiinta dhexdeeda miyay ahayd inay yeelato hadday yeelatayse maxaa laga dambarsaday oo laga helay su'aasha mawduucu si uu noqdo mid cad waxa weeyaan fatwada iyo kaalinteeda muslimiinta dhexdeeda marka taa laga yimaado markaynu ku doodayno
sida buuga ka ciwaan hoosaadkiisa ka muuqata fatwadu ma lama taabtaanba muqaddas ba yani jawaabta buugu haya waxa weeyaan maya sideeba horta intaynaan jawaabta bixin xageebaynu ka keenay intaynaan oran waa maya in dadka qaar ay siiyeen waxaynu ka keenay waxay ku dhisan tahay doodu mandiqa marka la joogo dooda waxa marka la dhisayo waxa ah xoojiyaal baa jira premises iyo go'aan la gaaro oo conclusion marka xoojiyaha ay doodu ku dhisan tahay waxa weeyaan cidda fatwoota hadii lama taabtaan laga dhigo sidaa darteed fatwaduna waa lama taabtaan ka xoojiyahaasay ku dhisan tahay hadii muftigu noqdo lama taabtaan fatwada uu soo saaray ishu haday noqoto lama taabtaan marka waxa weeyaan diraandirintu isha waxa ka soo baxaya haday noqoto lama taabtaan waxa ishaasi soo burqad ka soo burqada ishaasina waa lama taabtaan bay ka dhigan tahay sidaa darteed muftigu hadii lama taabtaan uu dadka qaar u yahay waxa ka dhigan tahay dadkaas aynu leenahay dadka qaar waxa ay fatwadan u haystaan inay tahay lama taabtaan marka waa naqdin ah fatwadu inaanay ahayn lama taabtaan meesha naqdinta waxa la naqdinayaa si aanay u noqon dhibaato aan jirin oo laga hadlayana meesha jiritaankeedu yaalaana waa halka si aynu u cadayno hadaba laba dhowr qodob oo degdega si aynu u cadayno in muslimiinta dhexdeeda aanay fatwadu ayna ahayn inay noqoto lama taabtaan maxay hadaba ay noqoto waxa weeyaan fatwadu waa aragti qof oo ka soo dhiraandhiriyay faham uu u yeeshay nas diimeed marka si uu wax ugu cadeeyo fiihan nas diimeed oo qoran ama la soo gudbiyay ayuu ka fahmay uu faham buu ka qaatay fahamkaasuna go'aan ku dhisay sidaas darteed waxaynu ku doodaynaa fahamkaas qofeed ee aad iyo aadka u ah mid aragtiyeed very opinionated ah mid aad iyo aad u ah mid aragtiyeed waxa weeyaan waa faham u gaar ah qofka ma aha faham ka turjumaya waxa uu fahmay faham ka turjumayo aan leenahay sida uu fahmay oo kali ah ayaa ah sidii ay ahayd in loo fahmo ma aha laba talabaad waxa weeyaan maadaama aanay ahayn faham wuxuu fahmay iyo fahamka laga qaatay aanay isku mid ahayn labaas maadaama aanay isku mid ahayn saynu ku doodayno waxa meesha ka baxaysa in lama taabtaan looma dhawaadaan laga dhigo faham u khaldami kara sida uu u saxmi karo silamida fahamku hadii aan ka qaato tusaale ahaan hadii aan waxaan hor taagan kamarada midabkeeda waxa laga yaabaa inaynu isku wada raacno inteena indhaha qabtaa waxaan filayaa inaynu isku wada raacayno in uu madow yahay laakiin halkan ma ku haboon yahay in la dhigo waxa laga yaabaa inaynu ku kala duwanahay iyadoo inuu kala duwayso waayaheena iyo duruufaha aynu ku noolnahay aqoonta aynu u leenahay agabka kamaradaha aqoonta aynu u leenahay sawirada inaynu ku kala duwanaano oo qofkeen yiraahdo halkan ay taalo waa ku munaasib qofna uu yiraahdo kuma munaasib waxay tahay halkan inuu yaalo midig inuu aad u midigeysmo ama inuu aad u bidixmaysmo inuu dib loo dhigo in hore loo dhigo waxa asalka ah ama aan lagu kala bayrayn objective-ka ah aan lagu kala bayrayn tusaalahan aan soo qaatay waa midabka walaxda midabka kamerada laakiin waxa lagu kala bayraya ee kala duwanaanshaha iyo nisbiyada ama qof u kala duwanay subjective-ka ah ma garanayo labada eray waxaan fili doonaa dhowto hadii aad idigu caawinayso inaan aad u soo dhaweynayo objective iyo subjective ma garanaya Soomaaliga laakiin fahamku waxa weeyaan wax xaqiiqadiisu ay taalo oo aynaan sida qaalibka ama sida guud ku kala tagaynin tusaale ahaan midabka kamerada laakiin in kameradani tahay tii u wanaagsanayd waa subjective oo wax lagu kala tagayo oo waxa aadna oran kartid halkan way ku wanaagsan tahay ama iyada laftirkeedu waa wanaagsan tahay iyo wax aan oran maya sidaas waxa la mid ah naska sareexa ah ama naska cad ee soo guuriyay ee saxmay ee diineed waxa weeyaan waa shay objective ah
wax aan lagu kala duwanayn inuu yahay naskii laakiin waxa lagu kala duwan yahay waxa weeyaan kow fahamka laga qaadanayo laba sida loo arkayo inuu halkan munaasib ku yahay in kale saddex xukunka ama go'aanka ka dhalan karaya saddexdaa maadaama lagu kala duwan yahay waxaanu ku doodaynaa midkoodna ma aha biyo kama dhibcaan wataa doonto fii'aad bay u caddahay haddii haddaba aanay sidaa wax noqonin oo aragtida dhulka ka adeegta ee terrestrialka aragtida dhulka ah celestial laga dhigo ama aragti cireed ama aragti samaawiya laga dhigo oo dhulka inta laga qaado samada la geeyo maxaan ka wadnaa aragti ilaahay iyo diintiisu ay tiisi ay tahay oo biyo kama dhacaankii laga dhigo maxaa ka dhalanaya sida aynu ku doodnay buuga dhexdiisa waxa ka dhalanaya jaahwareer ma aha wax sida la filayo oo kaliya sida waaqica ah jaahwareer baa ka dhashay ka dhalan kara lana filayaa inuu mid ka waalan ka dhasho hadii aan loo deynin inuu fikirku yahay Cabdicasiis baa sidan u arkay Cabdilaahi si kale u arkay Axmedna si kale u arkay hadaan loo deynin in kala duwanaanshahaasi jirayo oo uu jiro waxa ka dhalanaya jaahwareerku sidee buu dhalanaya wuxuu dhalanayaa fatwadu ama aragtida qofku waxa isla bedeshaa duruufta goobta garaadka iyo danta qofka ay isla bedeshaa afar qodob oo waaweyn oo taariikhda iyo taaganta iyo timaadada laga arki karayo weeyaan inay bedelaan qofka goorta aad nooshahay qarni ka hor hadaad noolayd ma lama fikratihid lama duruuftihid lama go'aantihid lama malatihid hadaad maanta nooshahay maanta sidaa tahay sidaas lamid ah lama go'aan iyo fikratihid qarni ka bacdi ama muddada ugu yar laga fikiri karo ay wax isku bedelaan sida oo kale goobta aad joogtid waa ay isbedeshaa waxay bedeshaa go'aankaaga goobta hadaad ku nooshahay Hargeysa oo biyo la'aan ka cabata hadaad ku nooshahay oo aad tagtid magaalo biyaha ku warwaratay isku duruuf ma tihin Hargeysa waxa laga yaabaa inaad ka fikirtid oo warqad laga qoro oo laga doodo sidee bay Hargeysa biyo ku heli lahayd tusaalahaan laakiin meel kale marka la joogo waxa laga yaabaa in dadku ay ka fikiraan sidee biyaha isaga moosi lahayn biyahan badan ay nagu batay sidee baynu isaga yareyn lahayn ama aynu isaga moosi lahayn sidaas darteed maadaama duruuftu ay isbedelayso oo qofka goorta uu nool yahay goobta uu nool yahay garaadkiisa laga qofka waxba isbedela tusaalahaan imaam Shaafici baa waa tusaalaad u fiican labadiisa fiqi Masar iyo Shaam Masar iyo Baghdad aad bay u kala duwan yihiin sababtoo ah waxa isbedelay goorta waxa isbedelay goobta waxa isbedelay garaadka sida oo kale muhiimka ah danta ayaa isbedesha danto haday qofku oo halkan ka dhax arko dan oo dadna go'aan ka qaato biri ka maalin dantii uu meesha ka waayo qofku waxa uu keenayaa fadwo tii hore dilaysa hadii markaa muqaddas ay tahay jaahwareerka dhalanaya waxa weeyaan diintu ma waxa isla badbadashaa hadba misaajka iyo qaabka qofku yaalo tusaale waxa Sacuudiga hadda ka socda inuu hadlayno waa dareemay orgtihiin fatwada gaari ka xaynta tusaale ahaan oo kaliya muncim oo kamid ahaa diiwaan malakiga kamid ahaa hay'adda wanaag fariistu wuxuu ku doodi jiray wixii ka horeeyay 2017 gabadha ununsadeeda dhadignimadeeda ayaa loo ilaaliyaa sida daradeed baa gaariga inay ka xaysa xaraan u tahay iminka markii boqorku soo saaray digreeto uu leeyahay waa la kaxayn karaa wuxuu fatwooday isla isagii ma aha qof kale isla isagii wuxuu fatwooday in gabadha go'aanka boqorku qaatay oo asal sharci leeyahay markeeda horabana gaari kaxayntu ay tahay mubaax waayahay maxaa isbedelay waxa isbedelay danta uu qofkani qabay sidaas darteed waxaynu leenahay maadaama waxa soo qodob jiraan ma noqon karayso fatwada lama taabtaan fatwada waxay noqon karaysaa la taabtaan waxay noqon karaysaa mid gaar ah qofka gaar ku ah saxmi karta sida ay u khaldami karto saameynta aynu waxa laga yaabaa inaynu buunbuunin qof u arko qabaqashada iyo ka warwarka aynu ka qabno fatwada oo lama taabtaan laga dhigo halista inoo muuqan karaysa oo kamid tahay diinka baxa salahan oo kale in qofku diinta uu aaminsanaa uu shaki ka qaado dabadeedna uu ka baxo boqolkiiba 5 carabta ku nool Sacuudiga oo kamid ah dalalka shareecada ugu adag waxa weeyaan aladiid boqolkiiba 5 boqolka qof ee meel socda 5 kamid ah sidaas darteed
marka inta leenahay waxa laga yaabaa qof inuu yiraahdo malaha boonboonin baa ku jirta hadalka oo de qof weeyaan waxa ka hadlaysa waa qof fadwooday sidan waa qof waxan kala fadwooday laakiin hadda saameynta aan tusaale degdeg idin siiyo 2005 dalka Hindiya gabadh baa waxa kufsaday oday sodogeed ah baa kufsaday dabadeetana mufti ka tirsan daarul ulama oo dalka Hindiya ka jirta ayaa wuxuu fadwooday maadaama odayga sodoga ah uu ku fududaaday inanta qabay inuu ka furmayo uu la noqonayso inankii qabay ay inankeedu kala noqonayo shariicada sida ay qabto fiqiga soo qabo odaygii baa kugu fududaaday Soomaa inankiisi aad isla joogteen uu ka furmaya waxaana loo ictiraarayaa inankaaga oo kale inantu shijaayad bay qabatay labadooda shijaayad bay qabteen waxay yiraahdeen muftiga sheekha maadaama ay diintu sidan tahay waan u hoggaansameynaa laakiin aakhirkii go'aan maxkamadeed oo degmada ka ayaa laalay go'aankii fadwadu saameynta inta leeg bay keeni karaysaa in qof xaqaysa la duudsiyo oo la yiraahdo meel aan sartu meesha ahayn laga doono kow tusaale ahaan dalka Masar waxa in badan tashuush ka furnaa guud ahaan muslimiinta dumarka iyo raggu meel ma wada iman karaan bad qaar fadwada waa khalwa waa ikhtilaaf way isku dhex milmayaan dabadeedna si taa loo xaliyo Ciisa Cadiya oo ahaa mufti reer Masar jaamacadda Asar qaybta xadiiskana haystay wuxuu fadwooday in gabadhu si ay uga baaqsato in ragga ay la shaqeynayso ajnabiga ah aanay ikhtilaaf ugu sameyn ay naas nuujin karto si ay markaa u noqdaan caruurteedii oo kale markaa muxrim ay noqonayso fadwadaasi way shaacday meel kasta ka dhacday saameynta yeelatay fiir waxa laga yaabaa inaad tirahdid waa qof iska hadlayna waxaan ahayn baa rabaa inaan ku dareesiyo saameynta yeelatay waxa weeyaan in dhalinyarada wiilasha ee reer Masar meelo badan laga soo warbixiyay in ay taxarush ama farafarayn jinsi ay kula kaceen hablaha oo yiraahdeen hadee inaas nuuji nawaki u sheekhu fadwooday arintaasina ay markii dambe keentay inuu shaqadiisa ku waayay muftigii walow mar dambe maxkamadu tiri waa in loo cabiro aragtida dhakhtarka inay tahay mid u gaar ah oo loo cabiro inay tahay as daruuri ahaan diintii talaalka tusaalaha saddexaad 2003 wadaad badan oo reer Nigeria ah baa waxay fadwoodeen inuu xaraan yahay dhagarnimona ay tahay conspiracy talaalku siisa banaanba fadwadaasi waxay sababtay in laga caago in la istalaalo oo dadka reer Nigeria iyo dadka ku aagdhow way fadwada qaatay u dhagnugulaaday maadaama loo arkay lama taabtaan oo diinta inay ka matalayso waxay sababtay in 13 dal uu muddo 12 bilood ah ku gaadho uu ku fido cudurka dabayshu booliyo waxa weeyaan 2003 gugi 2007 tan oo kale waxay ka dhacday Pakistan wadaad tuuleed ayaa soo saaray fadwo xarimaysa talaalka oo hor istaagaysa ololaha talaalka ee lagu badbaadin lahaa ubadka dabayshu soo ridan karto ee u nugul taasi waxay keentay in calalis ahaan 24,000 oo ubad ah ay talaal u soo rito oo ubad 24,000 oo qof oo caruur ah oo laga talaali karayo booliyada tusaale dabaysha in loo diido dabadeetana taasi ay sababto in talaal la'aan ay ku dhacaan boqolleyda ugu badanna uu soo rito dabayshu fadwada oo saameynta dhulka taala ee aynu arkayno leh ma aha inay noqoto lama taabtaan waa in loo ictibaaraa loo arkaa inay tahay fadwo qofeed oo u saxmi karta sida ay u khaldami karto dooda waa intaas wixii kale hadhowban ku dari doonaa maadaama waqtiga hayo aad baad mahadsantiin موضوع حساسية ومدى المسلمين قرون بدن هيستي بوبوغو قاضى دقيا marka si yar faahfaahsan baan uga hadlayaa wala waqti ciriir yahay hadhowna hadaladiina tacliiqaad baan ku dari doonaa wixii aan ka gaarno insha Allah waxa horta farqi u dhaxeeya ummadda muslimiinta wax la yiraahdo qadaa iyo fatwo labaduba waa ra'yi qof laakiin midna ay waajib tahay in la qaato midna ay tahay ra'yi qofeed in lagu hayo muslimiintu marka waxay ku dadaaleen qadaaga maadaama qofka xukun la saarayo oo ay Soomaali ahaan iga raalaha Soomaali waliga fiican magaalada iska koray mooti qadaagu maadaama garsoorku
ninkan uu qof xukun saarayo ayna adag tahay aad bay muslimiintu u ilaaliyeen asal Umar Khadaab kale wuxuu leeyahay ninuu magacaabay warniyo haddii talada go'aanka shalay goysay maanta uu mid ka fiican kugu soo dhaco dib ugu noqo fatwada waa la yareystay maadaama ay ra'yi qofeed ahayd ra'yigeeda qofeed baa loo daayay laakiin fatwadu waxay noqotay qadaagii laga baqay mid dhaafta مثلا qadaaga waxa la yiri ninka qaadiga ah ama garsooraha ah isagoo gaajaysan ama aad u dheregsan isagoo faraxsan ama murugaysan yuusu xeer goyn muftiga waxa la yiraahdo maadaama ra'yiga iska tahay xilliga horta iska hadal muftiga markuu soo saaray fadwaad lagu hoogay lagu baay waxay taabatay arintaasu xukunka sharciga ah ee muslimiintu waa thaabit بدون زمان ولا مكان ولا wax kale isbedeli karin tusaale ahaan sinadu waa xaraan macquul ma in sinadu hargeysan xaraan noqoto burcaan xaraan noqoto laakiin fatwadu meel bay xaraan noqotaa meelna waa xaraan mesela khamriga qofka saxaraha Liibiya jooga waa xalaal oo biyo waayay laakiin hargeysan xaraan ma noqon kartaa maya fatwada marka waxay noqotay wax lagu dhago oo balaaya marka arrin baan iska soo sheekeynaya ummadda muslimiinta ilaahay afar buu siyaasadda markuu ka hadlayay السياسة الشرعية في الإسلام أفر أهلمات بالإسلام كتابتي وكتغي وحو تابتي الشورى والمشاورة والعدل وحو تابتي مالك عام كاي أمضى وحو يري إلهي نبي محمد وأمره وحو يري وشاورهم في الأمر تلذا لو ذاك وحكى له إلهي يري وأمرهم شورى بينهم labada ay waxa horeysa oo amru mashhuura baynahum waxa weeye ninkii madaxweynaha ahaa waxa uu ku iimaanaya talada doorasho sida mushabbix ugu yimi talada uu ku soconayana waa isla doorasho weeye wa shaawirhum fil amri balin amni baa laga hadlayaa dadka ay khusayso in loo yeero waxbarasho laga hadlayaa dadka ay khusayso in loo yeero sida markuu Ilaahay soo hadlay buu hadana laba aayo noocaas isku xijiyay wuxuu yiri Ilaahay wuxuu idin amrayaa إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأمضى ريت بوسيشن كا أما شغال القوانين يقف كوها بالهلقي حولها أمضى يعني واحد قدبين أنت ما كل هاي صعب صح الله عدالة هلا فريسيو بدي بهاي حكيري مركا كبعدي أطيعوا الله وآيات وسكوح على بعض آيات وأول أمر منكم وذاك ترى إذا هي أضيع دورش يكون بعد المشي أنا قادر بعد عضي وماذا اسكو تمي نبع على دورتي اللي هذا علي بن ابي طالب معاويه بن افسيان با وحو يري خليفه متيد dad ba iska qiil raadiyo Muawiya wuxuu u dagaalamayay arintii Usmaan bin Affan in adeerkiisu la dilay buu rabay in uu soo argooyo khaliif buu noqday Muawiya noqday rag Usmaan dilna waa joogeen waxna kama qabano xiligiisii arintii maadaama la iskhasbay qoladii calina isdiibeen oo dame Abdulmalik bin Marwan dadkii laayay oo sawradii kacdoonkii Abdullah ibn Subaan intii Makka loogu yimi la dilay banaanka la dhigay meedkiisa lama aasi kara la yiri 100,000 iyo dheeraad xijaaj ku cunay muslimiintu waxay yiraahdeen waa culimadii aan baqno ul amri aan ka soo qaadno fiiri fadwada waxa lagu qaatay maxaa keentay waxa keenay xaala samaniya jabrutiya maqhuura oo abaqdin way aan baqnaa fadwadii aan baqno la yiri ahmed ahmed waxay ma ka turxaan bixinaya inta yarta waxa jira niman shiica iyo rag kale mulxidiin oo Facebook wax uga doodaan dawlad umawiya waxay saameyn ku lahayd tacliinta muslimiinta waxa been weey tacliinta iyo waxa ka socda masaajida boqorradu saameyn kuma lahayn wala ahadiis bay sadajin karin wala wax ka sadajin karin waxa hadda idin sheegay dhan waa ahadiis ku timi Bukhari hadii Abdulmalik bin Marwan awood u leeyahay hadiiska ku joojin lahaa saameyn kuma lahayn kaliya Abdulmalik bin Marwan dawladiisi iyo rag ka dambeeyay dib aan u sheekayn doonaa waxay ku doodi jireen man nasacna fi sulda nasacnahu fi nafsi عدي أنجر نقول قش بقرطوية ده أو ترى هذا هرب بين أمي بقرطوية ده ماله نفس السدود كل جليده لكن تعليم تجانب كله كبح صنبه دولتها المعاصر هذا وحبر الشيء اللي هجايو تاريخ وحاسس ميتشني وهي دور أنت هذا سأقول عضي أو بقدين تعلقاتي دولة أموية واسك السعودي علماء دماتمي ومصيبة فضو ahaan way ka baxday waxay noqotay xukun sharciya qisada yaab kale waxay maalin weyn Masar dood baa ka dhacday mar dhexdeeda qaniga hada tagay nin baa wuxuu qoray buug ku amaanayo in al-Arabi waa taqaaneen al-Awasim wal-Qawasim si fiican buu Muawiya u amaanaya Hussein bin Ali oo loo dilay doorashadu waa wax muslimiintu leedahay loo daayo buu wuxuu leeyahay Hussein bin Ali wuu khaldana waa aragtay culimadana qaar dhaha Hussein bin Ali nin fudud buu ahaa arinta haday saa dhacday
nin ardayis kamid muxubidiin qadib loo hadda aad u jeclaaba ka daba hadlay nin qasaal la ka daba qaatay waa khalad buu yiri doorasha jirta soo saasay waligeed ahayd wuxuu la soo muxubidiin qadib wuxuu la soo istaagay xukunkaana waa asar sharci yaa kugu jiri waa asar sharci waa fadwo fadwadaas waxay keentay marka in la ka taabay waa wada dhageysateen buugan yar uu tarjumay muxaadaraadka Sheekh Mustafa ee la yiraahdo التتار قصة التتار من البداية إلى عنجالوت ممالك با كأتكات التتار صح ممالكتا نينك ugu horeeyo waxa la yiraahdaa Mu'izzuddin Aybak oo qabta talada waxa dishay naagtiisa shajaratu dur bint Abdullah maxaa dhacay laanu boqorad bay noqonaysaa qofka marka iska dishid boqor baa lagu amaal marinaya maadaama hal waxa kugu filan ba hal inuu bay'ad kula galo ummadda dhameeyda qaraarkeeda waxa kugu filan hal doqon meelaha mar inaa u yeeratid oo yiraahdo ilaahay dartii baan ku bay'ad kugu la galay halkan ay fariisa dhahaysaa oo bilaa tawfiiq Mu'izzuddin Aybak markii la dilay iyadina talada qabatay Sayfuddin Qudus baa dilay dagaalkii uu hogaamiyay taar ku jabiyay taarkan ku saa uga soo jabiyay waxa dilay Ruknuddin Daahir Baybars lama oran waa ninkii dhamaama naga dishay tolla ay waxa la yiri boqor baa nootay waska fariist boqor iska ahaa nin fiican buu ahaa laakiin waxaan ka hadlayaa yani fadwadaana saameynta ay yeelatay maalinta fadwada la qaatay macnaha oo la oran waayay Macaawiyo waa khaldantay la oran waayay Cabd Malik bin Marwan waa khaldantay la oran waayay sideedaba saxaabada in la naqdiyaa waa fiican tahay Ibn Taymiyyah buu si fiican buu u maagayaa لكن مرة بقى أنا ابن تيمية مدان الحكم ابن تيمية السياسة الشرعية مثل الجوانيك وفي عنه علماء وحليه هي بوجس السنة أبو بكر ذاتك إنه كف يعني كمان نقوم بليه خليفة وحو كنا دور شهادة مسلمين تو أي دورتين حدي أغلبية المسلمين تو إسقى دوران هنا خليفة من نقدان عمر بن الخطاب بليه إن أبو بكر وسيد لمن يا أو سيد دار ما صار شرحه كمان نقول حدي أي مسلمين تو نكلا دوران لها يعني نكلا ساعة نقول لها بليه معاوية أنا بقول خالد بكودة قالمي بقرطوي ربي إسلام كان بربو دمي وواحد إلى حد أنا هيستا وواحد علماء ودهان ولأمريكا سعودي هلا عضيعه محل قدر في مات أنت نكى الإعلاني واحد حسوستا رمضان أنت لما كنا شان طبعا أنا مسلم صومالي ده ما أنت كهوريسان وعفري ما بعيد ما أنت كهوريسان عيدي ما أنت كهوريس عيدة واحد لقى كبران أفرني بالداري جروي وبران كعرقتي يا شيخ أنا وقاعد جعلنا محيدين اللي يرهدوا وسيركي دينته وقافته بتلا وحو يري أروى وأنتي سعودي قال ما أعرف ما بكون شيء طبعا عنتوا واي لكن بسكو بس وقتي فيري ما أنت وحي تاجنتها مركه سيقول عضا شيء جاي بقول كي بشان سعودي إنه قاليه ما أنت تاجنتها إنه فيسبوك كو أرق نقطة لين يرسم عليه ده قال عنه حق بيقوليه واحد فرحان الله سؤالك فضوضة هدي لقديجو مقدس رأيك عالم كلقديجو qofku waa shakinaya asla fatwadu waxay ahayd wax dhif sanadkii mar la arko bay ahayd mar la arag bay ahayd buuga waxa ugu tagi doontaan 80,000 oo fatwo oo sanadkii la soo saaro inta ugu soo yara koobo saasa isku leeyahay marka saasa dadkii ay u baaba'een waxaan rabaa marka inaan la isku khaldin ahkaamta sharciga ah iyo inaan la isku khaldin iyo fatwada farqiga weyn baa u dhaxeeya fatwaduna waxay isla bedeshaa xaaladda qofka midalan ibn Abbas oo fadhiya hoygiisa cilmiga baan u yimi markaas wuxuu ku yiri ibn Abbas oo nin ma dili kara ninku marka nin hadaan dilo toobad ma leeyahay nin iska faraxsan buu ahaayo cilmi doonaya suuraha toobad waa leedahay nin xanaaqsan buu yimi ibn Abbas nin hadaan dilo toobad ma leeyahay ma yaba toobad ma leeyahay أردي بقى وحيد وننا هل فضواء وحيد لا مر كلا هذا شيء ما حدا وحيد نين كان نبو ربي هذا إنه دلو نين كان ضمه نبو هذا ربي إنه دلو وجيك سمعت أرق لكن نين كهار علم بدوني ساعة كلا بفضوا أحد وحيد فضوا واحد في لقرنا قصده نين كعالم كأحدي لقاه له وإسكت جاي مثلا في نين كان فريسية فقه حنفية ده الإمام يوسف يسوى فريق قصري هارون رشيد نحو يري فقهك ينحوها يا هرية إمام يوسف وحقب إنه هرية الله أعلم بيرك ودمانه فقهه نيجي كنا نحوه مركاسو حجير كياني أو نحوه مركاسو إمام يوسف قرن واي مركاسو إمام يوسف يري حتى غير يابو يري إن نحوه هرية ساسي أهيد فضوضو وحن كهلا يا إذا نتعامل يا فقهك اللي يراهدو بريورتيكا أما مهمة يلا سينا يا وحاس
muslimiintu waagi hore arrimahaas xoogga la saari jiray arrimahaas inta badan waa arrimo aqliga ku xiran ma aha arrimo iyo aqoonta qofku shayga u leeyahay ma arrimo ku xiran ma aha arrimaha mutaqayiraadka la yiraahdo waxaan deganaa xaafad ku taala magaalo qaran la yiraahdo Xirgoble guriga aan deganaa afartiisa dhinac min 10 guri intaanan gaarin waxa ku yaala masaajido taraawixda hal masjid ku tukatid waxa guula tukanaya sham laakiin xaafadda Soomaaliya hospital waxa kaaga sii daran xaafadda oo qof haduu ka dhaawacmo xataa kliinig yar ma lahayn qof hada ku tiraay Soomaaliya وني أمي كوفي عن تاي لعقتها أنا نقولين هرت أنا وكير مكتا إن نوع على دليله دولة دي بعد توجا يدا يكوها بنورت ليش يسمع الله صار وهذا اللي غير يدقون لكن يجا بعدين صارنا بقى ما دام يجوا فضول ضبطان وحكم أنا سنة العقد خليج كرجع سوق قاضي هرت أنت بدن أنا آخر سنة وحكوا ورن وحلو وصل غير فاضل من توحس وسكعد لكن العقد ذاك الشعب كان لقى أرورنا يو ذاك الشعب كان العقد لقى أرورنا يو ما هبون إم سجل الجلوس رضع في عن تجد ويالا تصالح بإنسانية اسطنبول دولة عثمانية اسطنبول إذا كما قرصنا تاريخ هذا اللي وحيال سيفت النبي قال تعالى وحيدا اسطنبول ويلكو وحكود نجري هوسبيتال وقفا وحكود نجري معد وقفا وحكب حجري كشق نجري شقا وقفا يعني ضد انت قاعد تسكت تجين كنتربيشن السمية وكشق أنا يسوي لكن هول شيء تهي فائدة أنا قدونين هادونا جورك سبحان جرا وقف الميسو ده يكون نجري ما وقف يا كيف عنا أرتها وسامين كرنا هدي يعني إنه عقلي كاشنو أنا كلام إذا كنت ريا وير شريعة هذا هي فنكوا وما تصمد حبها تسمع له دراسيه هي سياسة صدق لا واحد قال كذا يقول لي ته شريعة هذا واحد لقيه ويل غيرك أنت كقوستين دب جروبي بحلها سوسن ويل كفي عنه ويل ما تقف بلاس كانوا شرع ودف حتى فيري سكولرشيب لو ما بخيو حيوان كميت سكولرشيب معناها هذا مثلا واجبتن دولده سومالان سوماليا قفك ardada بلاس كينتا شرع لما سيو qof wali ma aragtay ku dhahay balaas ma keenayo suuna ma sharci waday maxaa ku farsaal weeyay wadanka waa wax liisama jidaan booliska halkan waxa la galiyaa qof reerka ugu toogsan oo ugu daanisan baa gala yaa ku soo haray fanka mid reerku soo qaban waayeen oo si fikanaya iyo naag isla soo qaban waayay isqaawisay hal baa ku iimaanaysa waxa keenay waxa weeye bulshadeena marka horeba aan u basnaa waxan waxa soo baxday fatwo ana xiisid waaban kubadda cagta iyo kubadda waxa jirta madaxa hirdi la galo labadaas markaan hirdi aan jeclaa tan kana ragaan saxaabnahay baan jeclaa macallinkaygu wuxuu soo saaray fatwo cajiiba masaajidda laga siidan jiray wuxuu yiri kubadda cagta buu yiri markii ugu horeysay oo la keenay dunida nin muslim oo madaxa laga jaray baa lagu ciyaaray halkaas ay ka timi asalkii kubadda ninkii lagu arko isaga oo ciyaaraya waa 8 maxay الله waaye kubaddan jeesada buu yiri yahuud baa keentay madaxaad ku dhufataan halkaas sujuuda si loogu ciyaaro iyadana qofkii lagu arko waa 40 ka soo dhacay way u soo dhacay fiiri dib male laakiin hadda markii dib loo saxay wixii dhalinyaro badan baa gaalooday marka waxaan ku daray inay gaaloobin waxaana waa ra'yi caalim bay ahayd fuqahay ahayd waa maqasheen Abu Hanifa saasuu yiri hal مثلا arintana nabiyada qaar dumar ma ahaayeen hadda hadii ka dhibaatay tiraadaan maya waa dood caadiya ibn Hasan wuxuu qabaa inay dumar haayeen culimada baa ku raacsan wuxuu ku leeyahay waxyi baa ku soo dagay Maryama iyo iyadoo ay taano aayada ah wama arsalna min qablika min rijaalin iyadoo ay taalo bisaleeyay aslan waxaanu wax ahayd xiiska noocaas wax ku ilaashan loo kala aragti duwan yahay la isku ixtiraamay laakiin markii fadwadii laga dhigay wax muqaddas ah oo sheekhi uu noqday lama taabtaan noqday anta sakant laakiin ogaada markasta waxa jiray ra'yi dhahaya waniyo ka daaya haba yaraade waa ka baxay aad ma santiin buugaraadka quruxda badan leh nooca u fadhina dabcan aadka quruxda badan leh amaan ma jeedo laakiin aanu markuu soo baxay aad bi cajabiyay farsamada uu ku daabacan yahay kaliya ma taqaana aan buug la qasbay ahayn oo loo xog sheegtay sida kale habeynta gudaha soo buugu isku daba yaalo ma taqaana layout-ka
laftarkeedu waa buug aad u wacan waxaan u jeedaa xaysiisiga ma aha waa buug ku raaxayn inaad akhrisato oo isha aan u darnayn culays badan aan lahayn wuxuu xasuusiyeenaa inaad arkaysaan mooyaane oo qalbiga ka buuxiyo moogta oo buuga sida wax ugu qorqoro waxay ugu dambeysay malaha 8 sano aan qalin u qaato saa wax ugu dul qorqoro waxaan ku bilaabay horta mawduuca iyo mataqaana qadiyada uu ka hadlayo buugu mise waxaan ka horeysiyaa horta waxaan u baahanahay inaan ka boodno qadiyad ah buugu maxaa ku jira inaan sheegaan isku daymaayay saan raggiiga horeeyay aan sheegin macnuuna ma aha inaanu waxaan u fadhinaanu buug ahayn waxa weyn in la iska dul qaadin mas'uuliyadda akhriska buuga oo intuu qof halkan soo joogsado aan oran buug waa inta soo cutub waa inta soo page cutub walba waxa la yiraahdaa ka koobaad waxa laga hadlay ka labaad waxa laga hadlay ka saddexaad waxa laga hadlay ciladaas waxay keenaysaa in la iska dul qaado mas'uuliyadda akhriska oo qof shaqadii ku soo qabtay already qofka ku soo akhriyo ku sheegay marka hadaad aragtaan in ka boodin in aan buuga ka waramin buuga iyo akhristaa u taala أنا واحد كهذا يا بوجا مركز سؤال آخري واحد السرير ومدن تهاين لقى هذا واحد كوبلا قضية بوجا كهذا يا طبعا قضية أهمية ده حكي من سهل كي كجرتو مجتمع سوماليات أو مسلمنا أيين النهاي أو أول هراء إمكابي ملا وحس بدله يعني عدة وحش هيك تعلمون إنه نهاين ننقبيا أو سجايا هنا يو نن ودادا أو متقنا وعدية marka waxa weeyaan waxyaabaha wadaadku sheegana ka soko 10ka uu dhigo iyo wacdiga ma taqaana waanada iyo ka soko wuxuu soo saaraa fatwo iyo ma taqaana go'aano oo ma taqaana dadka u sheegaya ilaa waxa ay tahay la qabto iyo waxa ay tahay in la qaban marka ahmiyadu waxa weeye in majaalkan sida aynu ugu baahanay majaalka science-ka biyurka ma taqaana بيور ساينس فيزيكس جغرافيا كيمستري سان ugu baahanaa in maanta u barano Soomaaliyaano inaan hore u aqoon ayaan waxa kale ugu baahanahay si lamida saan u baahanay nafteena u dirisno taariikhdeena iyo fankeena iyo ma taqaana luqadeena ayaa waxa kale u baahanaa inaynu ma taqaana bridge u sameeyno Soomaalida iyo ma taqaana culumta shariicada Soomaalida iyo culumta shariicada ummad diin haysato oo diinta aqoon u lahayn ayaynu nahay معناها الدين كتاهي علم دقود كتاهي واحد اللي يدي لما كان مغلي إذا عدا كده جستي عشان بلقي يدي شيخ بامير كهل اللي يدي كان ساعة واحد علمي كانوا قبل حي علم دقود كوين قعنت الواقع توح لقى قراء أو عادي لو درسه أتليست ساعة حتى حتى واحد ديدي ساعة قررين الديدوي موقت هذا اللي غريب كوها أنا ديدي كان الغنيمة أنا ديدو وحكلنا نضافة فرسموين وحن كلنا نضافة وحيوان أدكو جه لبو جيت أنا خريه كسوكو موضوع عيوان كي وحاس ما تقنا هبدع هذا الكي قرال كي فرسمة بعلد بك جرت نما أنا دي سوي أنا كم حاسس ما أدرك واحد مغلى فرسمة قرال كي هبدع ما تقنا إربحنت يصير وسكو هايستو قرالكم طبعا waxa weeyaan farshaxan weeyaan Cabdicasiis in loogu hambaliyeeyaa tahay waxa kale oo naadir ah oo rabeen halka ka sheego in la xishoonin buug Soomaaliyeed oo fikradiisu alif ilaa ay haysato oo marka aan halka ka bilowno ilaa jildigiisa halka ugu dambaysa aan la boodahayn oo mawduuc dheer ii soo galina ama sheekooyin ka baxsan mawduuc waa yaryahay marka waxa tahay inaan hambaliyno inta hadda ku dhaafo mawduuca aan waxba ka sheegi maayo intii rag hore sheegeen ku celcelinaya laba nin baa iga horeeyay tiraba waxaan rabaa waxyaabaha buuga ka tabay ee iga maqnaa ama ila dhina ama naqdi noqon kara ama kab noqon kara ku daris noqon karta inaan ka hadlo oo mawduuca koobaad yahay inaanu buugu kala saarin ama inaanu buugu fadwada ka soo gelin reerkii ka soo jeedo hadaan waa abtirino fadwada waxa ka soo jeedaa culumta fiqiga ka soo jeedaa marka inaanu buugu qixitaankiisa oo qixitaan mustalax qayaxan oo fadwada waxa caynka marka laga yimaado inaanu fiqiga halkii kaga jirto علومته كلا فقه أصول كي قواعد كي يو فروع الفقه يو متقنا أدوات كيسة كلام يو بالكيم كلا هذا مقاصد كا مركا واحد موداين يجيت كجوان تهاي أو عدلك تيمدي تاسو شكي مركا هرب كجلني سام أصلا محا فضوضة أيو تيمدي رول كي بيحني سا مركي كوباد محوها تاريخ هان محايد طبعا
waxyaabaha qaarkood waxa u baahan yihiin cilmi baaris dheer iyo kharash iyo hawl iyo waqti u baahan oo aan dareemi karno ama garan karno sababta u maqnaatay laakiin waxyaabaha maqan ee aan tabeebay ka mid tahay waxa kale oo aan tabay marka laga yimaado shaqada iyo qeexida fadwada iyo farac ay ka soo jeedo marka halka qeexida markaas intaan dhaafin waxaan rabay inaan qadiyad ka hadlo shaqada ay qabato fadwadu maxay tahay waxa jira مثلا waxa soo xaraan waxa soo xalaal ahkaam sharciyo shana jirta oo la yiraahdo xalaal iyo waajib iyo mustahab iyo mataqaana mubaax iyo makruuh iyo xaraam wana ahkaam mustaqira macnaha ahkaam badankeedu qadaayadka mustaqir tahay mushkilada fadwadu maxaa marka hore ay meesha soo gashay mushkilada fadwadu waxa soo gashay farqi baa u dhaxeeya siqada qaanuniga xeerka caadiga مثلا la yiraahdo waxa maxaan tusaale soo qaadanaa tusaalahan biyuhu waa daahiro ma iska goobaan waa siqa qaanuniga oo fiqiyo oo mataqaana asalkaygu waa daahir laakiin uma baahni aanu fadwo inaan ogaado in biyuhu daahir yihiin waxaan u baahanahay marka cilad igu timaado ama biyo ay wax igaga biireen ama biyo aanan hubin daahiriin ama biyo aan biyihii la yaqaanayn ama wax kale oo aniga igu soo dirsay macnaha xaalad istisnaa oo aan umumi ahayn aan qaacidada umumiga dabaqayn in qofka markaa xukunkii hebel waa sida aha anani ciladana ay haysato mushkiladana jirta maxaan yeelaa marka muwaamaad iyo mas'ala shakhsi oo adiga ku gooniyo marka waxa dadka kale in aanay wax badan buu tirin laga yaabo waliba u baahan in adiga gooni lagu dirsa xaaladaada oo intaad adigu sheekha su'aal weydiinayso ninka faqiiha ka badan inuu soo ku weydiiyo si uu u garto istithnaa'iyada mas'alada ku jirto marka shaqada koowaad ee fadwada ahayd horta in xaalad istithnaa oo aan qawaacida fiqiga ee mustaqirka aan ku jirin ay ka jawaabto wana halka koowaad ee ay soo dhaaftay ee ay ka soo gudubtay waxaan fadwo noqonaynin xaga damaan ayaan rabeen kaga hadleen waxaan fadwo noqonaynin abaan ku horeeyo waxyaabo buugan ka tabay ka dhiman waxa kamid ah inaanu kala saarin faqiiha ama caalimka ninka la yiraahdo shakhsiga la yiraahdo iyo wadaadka oo ama aad arkayso labada fikradood is dhaafaya oo wadaadku ma faqiihba mise faqiiha wadaada mise mataqaana mise mid walba midka kale طبعا waxa su'aasha uu keenaya waxa weeyaan fikradda wadaad inagu eriga aanu isticmaalno waxa weeyaan qof mutadayna macnaha oo dadkeenu naqaano xerowga ama mataqaana dhaqan gooniya oo macnaha caabeen uma jeedo laakiin waxaan jeedaa qof sibu dhaqma sidaan yoyogaba magac ugu bixinaan yarkaasi waxa weeyaan yoyo ayaan nidhi yarka kale waa wadaad sababtoo ah waa category mataqaana social marka qof kasto category ku jira oo wadaadi macaalin baayo waxa ka dhalanaysa marka hadalkiisa ma laga soo qaadaya inuu fadwiye nin kasto khamiis xidho oo surwaalka gaabsada oo garka la baxa oo mikrofoonka masaajidka qabsada hadalku yiraahdo ma fadwa ciladan ka hadlay halkaas waxaan u jeedaa fadwadu marka hore waa shaqo dad leeyihiin oo sida ugu baahan yahay mataqaana caafimaadku inaad barato oo aanan qofna aanan kugu dhiibi karin mataqaana aanan ku kalsoonin xirfadaada caafimaad ee aqoontaadu leedahay qof igu qaaliyada aanan ku dhiibi karin qofan ka takhalusay mooyaan aanan ku dhiibi karin ayaduna cilada u leedahay marka in naqdi ugu muhiimsan buu u jeedinaa waxa weeyaan inuu kala xuli kari waayo ama kala saari kari waayo faqiiha ninka la yiraahdo oo shaqada fadwada soo saari jiray taariikhiyan iyo wadaadkana taas danba ugu jirto oo in nin kasto wadaadi faqiih ictibaarsanaada waa nin askariya oo darajo hogaamiye ciidan la siiyay inuu ka noqdo hasbina oo isoo ka tanaasulo marka in labada la kala fujiyo ayaa mataqaana ayaa muhiim marka inuu mataqaana niraahno wadaadka iyo faqiiha la kala fujiyo faqiihu uu yahay baan noqonaysa taas oo iyaduna su'aal kale oo aan waqti u haynina iyo waxa kale imanaysa marka maxaa fadwa wax kasto ninka ka soo baxa fadwa mise fadwadu astaamo gooniye leedahay oo ay tahay inuu astaamaha fadwada eegno waxaan hebelaad sheegaysaa aslan fadwaba maaha labadaas qodob halkaan ku dhaafo طبعا waxa kale oo jira waxa kale oo jira ciwaan weyn oo buuq xirey mataqaana qoray waxa jira fadwada iyo haweenka طبعا tusaalayaashan aad bay ugu badnayd qadaayadka haweenka ee fadwada ku soo aroora marka kow halka tacliiq baan rabeyna ka jeediyay laba mataqaana laba su'aalood baa halka ku jira oo ah
horta koow gabadhu ma fadwan kartaa oo aniga aan ahayn ana rabin bayna su'aal noqoto dabcan qofka mowqifka anigu taaganay qofka aqoontiisa xadiday ma xadido jinsigiisu oo koow marka karti in la weydiiyo gabadha ama haweeneyda ma adigoo haweenaad fadwoonaysa waa wadqonimo waa in la weydiiyo maxaad aqoon u leedahay saad ugu fadwato mana aha haween taageeridna noqon mayso in gabadh baa fadwooday fadwadeeduna hala qaato because of waa gabadh sida imka ciladayna haysatay gabadh hablaha kooto ha loo xiro gabadhuna ha ku soo baxdo waxa barlamanka waxa ima doonta gabadh aan soo tartabino siyaasiyad soo noqon oo digoorka buuxinaysa oo ma taqaana aan mujtamaca ana wala mujtamacii goonida ahaa haweenka iyo dumarka ahaa wala mujtamacii guud aan waxba u tari karin in laga qaybinta inta laga hor qaado qofka ama gabadh ha noqdo ama nin ha noqdo loo ictibaariyo waa mowqifkayga shakhsiga loo ictibaariyo wuxuu yaqaan marka waxaan halkan ugu sheegay mawduuca waxa weeyaan su'aalu soo darxinay waxa weeyaan kitaabkiyo aawi saamigii haweenka ee fadwadu su'aashaas aanu ka soo horjeedaa saami in lagu eego maaha wax kasta oo u baahan barasho waan xaga kale laga yimaado haweenka maxaa wax loo bari waayay دين قبضوا عند ورطة حي برانيسو أما فضوها أما فقها براتو أما عافمتها براتو لكن إن نسكت دينا إن نمبرينو نرهنا بقول كيو كنتن وين هالكن لقاه هلا هالكن كان وين بقول كيو كنتن لقاه هلا ديناميكس كسوشيال كابي أي على سكوتها أي هلا سكوتها موضوع عن روينا تعليقية واحد شراء فضوها ذو قصر بدن هو بوجنو شيء oo aad loo akhriyo intaan hadaan loobin milyan iyo waxa la akhriyo 400 jeer website laga akhriyo inta la sii koobiyay marka lagu nashineys kada fadal ciyaankeedu waxa sida haween loo raali gelin karaa raqabaadkayga jinsiga loo raali dareenkayga jinsiga loo raali gelin karaa marka cilada oo aan dareemay inuu buug soo bandhigay waxa weeyaan inuu in ay sheeg in ay fadwadu absas ku tahay ama ay ku dhagantahay ama ay ma taqaanaa ka wareegin ba mawduucaasi ma taqaanaa genderka iyo jinsiga iyo galmada iyo ma taqaanaa ahkaamteeda dabcanna waxa laga yaabaa qofka akhriya inuu dareemo inay mas'alo u gaar tahay ama wadaadka ku gaara ama fadwada ku gaara mawduucaasi jinsiga dhan waxa weeyaan phenomena meel walba ka jirta oo hadii fanay tahay hadii sugaan tahay hadii ay tahay ma taqaana qoraal caadi hadii tahay hadii fiction tahay waa wax aadamiye nagu beeran oo garan ma in dumarku inala qabaan raguna ay si baan ugu waleeyeen oo ma taqaana dabcan khibrad baan u lahayn waxaan garan ma idin lahay marka waxa cilad noqonaysa in gooni loo dhigo fadwada iyo haweenka waxa cilad laba jeer u noqonaysa fadwada mujtamaca oo dhan bay saamaysaa haweenkuna mujtamaca qayb ka yihiin fadwada dadku haday fadwada dadku u diido wadaad intuu fadwado dadku u diiday biyaha cabaan haweenkuna ku jiraan oo iyaduna daacabi mayso marka ani lama haboona in wax si guud soo shaala halka lagu موضوع الضمبة طبعا خالد المسو كعسان موضوع الضمبة حويان دمركو إني ما تقعنا فضوضان أهمية ما هين دمركو فضوضان وحويان إني كرتيدة عيلاتها مركا سؤال بن عيالك كردنا سواء موضوع كوسا حبسن ولي با وحكستو موضوع دمر كوسا حبسن هدي الدمر كفضوضان وحبي يسكب الدرس هدوني كفضوضان سؤال إذا كذي كتجيا طبعا أنا ما قبلين وحش كبدل يسأل أنه قف كوف فضوانا يا وكرتدي سيجرات كيس كم فضوانا يا جنسيس كم فضوانا يا أنت هذا كتجو وحن ربع إيران جانب كلو عن كتبي يرد القاضي جانب كلو عن كتبي بوجا سجنا عن درين سنين وكم قناة بوجا إن إيش صاروا فضول قيمه ولهابا أها وحما قرنايو wax ii sheeg Soomaa nooc min tawjiihayahay nooc min jihaynahayad marka fadooyin badan waxa uu shaqeysay kasoo mawduucdan ijtimaaciga waxa uu shaqeysay qadaayad ijtimaaciyan siyaasi oo muhiim ah bulshadu u nooshahay fadoodu waxay dhidib u ahayd gumisla dirarka oo aan rabi lahayn buuga ka muuqato waliba muqaddasnimadeeda waliba dhibar u ahayd dhabar u ahayd gumisla dirarka طبعا caalamka islaamka
ama Afrikada waqooyi dalkeena dhulkii la gumeystay mujtamac kastoo la gumeystay Afrikada koonfureed Afrikada dhexe Aasiya bari mujtamac kastoo la gumeystay wuxuu dib ugu noqday thaqaafadiisa si uu soo faqo wuxuu mujtamaciisa ku kiciyo oo uu gumeyska iskaga rido innaga muslimiin ahaan waxa laf dhawr inoo ahayd fadwada إنه نابلونيا أسر واحد كرفين متقانا وهالكيستانتي تما كرفين متقانا سيتونية فرانسيسكو سوكالي ألجيريا متقانا فرانسيسكا يوضي لورينشري عبد القادر الجزائري وضوضي ساون عمر المختار وضوضي سوفيقا هاي سنوسي وضوضي كلي سودانيا هاي مهديقا سيد كينيا هالكن waxaa macnaha uga jeeda thawrat 20 fi matqana Iraq waxa soo dhan nahdatu ulama fi Hindiya mushkiladu waxa weeyaan qadiyadu waxa weeyaan fuduud sida ay mararka qaar ay mujtamaca ciladaha maanta dhan ka sheekeynay ugu soo kordhisay ay mararka qaar laf dhawr u ahayd qadiyadiisa ama gumeysi la dararka ama kelitaris la dararka ay u ahayd laf dhawr sidoo kale موضوع كبحسن فضوضة لكن سوى حريرة ayaa ah waxa laga yaabaa qofkii inuu fiqiga booshaday inuu arko isagoo wadaadku xataa su'aal isweydiinayo waxana la weydiiyo waxaanu kaga jawaabno waxa sheekhu ama faqiihu dhaqanka fiqiga culumta kale ma dhaqanka fiqiga su'aashu ku jirta marka maqoolada waxa jirta fuqaadu ay yiraahdaan xukunku ma aha waxa aad oran karto mesela hadaad tiraahdo mikrofoonkan sida ugu wacana loo isticmaalo waxaan ku oran saimka uu hor yaala ugu wacana loo isticmaala sidanaan kugu ayaan ra'yi ku taga laga yaaba dan waxa xukunku xirfadu taama xirfada fiqigu waxa weeye inaan difaaci karo ra'yigayga inuu mikrofoonku sida uu imika u yaalo u wacan yahay taasi waxa ku imanaysaa su'aalaha ay imanaya in aad weydiiso adigu tiraahdo sida ay saamaxa u noqotay hadii sa kale loo dhiga ka waran marka su'aasha badan dhaqanka weydiida ama dareemayso in wadaadku weydiin ku leeyahay ama kitaabka laftirkiisa uu ku qorayo su'aalaha soo sorto waxaan soo weydiiyay oo hay ka yimaadeen waxa weyn fiqigi laf dhawr u tahay in su'aal timaado si qadan qanuuniga la taxriiriyay loo difaaci karo ama loo jabin karo loo oran karo mas'alada marka niqaashku halka mareeyba jabto ay isxidhi weeyday waxaan ku gabagabeynayaa hadafka buugo ahaa in muqaddasnimada laga siibo fadwada oo inoo daruuriyana laana fadwadu iyada laftirkeeda ayadan u tahay fiqiga laftirkiisa dan u tahay laga siibo muqaddasnimada waxa dan ugu tahay fadwadu marka koobaad ba ka soo kooyna qof gooniyo wax u sheegto waxa kale oo ay ahayd tool cilmi baaris tool in phenomena ay soo saarto ma taqaana su'aashu phenomena soo saarto laano ahkaamta fiqigu waxa weeyaan waxa ka dhalatay rogrogitaan Soomaa haddii intii wadaadku mesela halkii intii uu siibay ku xisaabtamay markuu qorayay ma taqaana manhajka qorayay intuu ku xisaabtamay haddii wax ka duwan aad keento oo wixii uu dhisay oo dhan su'aal baad keentay aduu qof caadi ah jawaab rabaatay su'aal baad keentay wixii uu dhisay oo dhan su'aashaada haddii duminayso wuxuu u baahan yahay su'aasha isaga u baahan si uu fiqigiisa u taxriiriyo marka su'aashu waa daruuri laakiin waa inay noqoto mare horta dhaqanka fadwa ma taqaanaynta mikrofoonka inaga daacad wala aan adkeysan karaano sheeg dhaqanka way intaan iraahdo dhaqanka fadwa intuu qof mikrofoonka qabsado iraahdo wax walba soo weydiiya sidii ninkii laga hayay is'aluuna aan al-buuri maxaa هذا المهم قبل كسو قبل إني لفقيه العرب العرباء ومن تحت شوف السماء وحل بيديود قرن ويدان بيقولوا حنا إنك يقول فقيه سنة عربتها يعد كستو سماد هوست جوكتا مركا إنه ننتو هكذا صار فرستين تاني را وسؤال كستو الفيديو وجواب كسته وصوت هورو وين علدو وين فضول النقطة الشغل كوالي قبل سوا هاي نقف حالة استثنائية كسرته مركب النقطة قضية شخصية أنا جاي عبد العزيز نقدر حاسين تنقولي وقولي ما دراني وحاجة حاسة كذا على حالة الاجتماعي جابها ساسا وحي اللي يجرب سدا أما حكم كسدا هانو كم بيحكي كلام حان يلا مركب
go'aanku aanu soo baxayaa adigu niyo mar hadda saysaa tahay sidaan yeel hadda kadibna saa iskaga habeen in waxa jecelaysana inaan ma taqaanaa ku soo gabagabeeyo dariiqada ugu roon buugan in lagu lifaaq looga dhigay tahay fududa lagaga siibi karo muqaddisnimada wax weyn in loo celiyo halkii aan ka bilownay oo ah asalkeedii oo ah inay farac ka tahay fiqiga muqaddisnimada waxa ka soo qaatay biyo muayana oo culum muayana leedahay in halkeedii loo celiyo si halka loogaga soo siibo ma taqaanaa muqaddisnimada aad baad u mahadsantihiin waan dheereeyay gaar Allah hada salaam alaykum wa rahmatullahi